ciyaar aad u xiiso badan ebed inta la xasuusan yahay waxa ay ka dhacday garoonka kubadda cagta ee waddanka Masaarida. ciyaartaas oo ahayd israabraabka koobka adduunka ee sanadda 2010 ka dhacay waddanka Koonfur Afrika, Algeria iyo Masar oo ahaa labadii xul ee ku tartamayay israabraabka koobka adduunka. labadaba waxa ay soo bandhigeen ciyaar wanaag, walow ay Masar ee habeenkii xalayta ahaaba ay soo bandhigtay ciyaar aan horay loo sii saadaalin. ciyaarta markii ay socoto durba 3 daqiiqadood oo kaliya ayaa gool aad loo farsamay waxaa lugta la helay Umar Zaki oo ah ciyaaryahan aad looga jecel yahay waddanka Masar, kuna hubsada shabaqii gool. wareegii koobaad ayaa lagu kala nastay 1-1. ciyaarta markii ay socotay 45 daqiiqadood oo ay tahay 1-1 oo ay Masar ku hogaaminaysa 1 gool, ayaa guddigii go'aamiyay in lagu daro 6 daqiiqadood oo ziyaado ah, waxaana gool kale ay heshay waddanka Masaarida. waxaa u saxay Imaad Madcum halkaas oo ay noqotay 2-1. hase ahaatee daawadeel Masar oo ehel isboorti ah haddana ku jirta jamaahiirta caalamka kuwa ugu badan. Masar oo ehel isboorti ah haddana ku jirta jamaahiirta caalamka kuwa ugu badan oo ah 80 milyan ayaa habeenkii xalayta ahaa waxa ay goosteen wadooyinka guud ahaanba mara waddanka Masar, walow ay jiraan dad farxad dartiis dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen oo indhahayga ay qabanayeen iyadoo lagu dadguranaya gawaarida ambalaaska loo yaqaan, walow ay meelaha qaarba wararka naga soo gaaraya ay sheegayaan Ismaaciiliya iyo Sharmashiiq iyo Alexandria in weliba la laaday shaashadihii dowladda ay ugu tala gashay in ciyaarta laga daawado oo lala jabiyey farxad darteed. mar uu booqdo telefishinka caalamiga Universal, jamaahiirta Masaarida oo habeenkii xalaytaha isugu soo baxay laamiyada waaweyn ee waddanka Masaarida waxa ay gacanta ku haysteen calanka waddanka Masar oo qiimihiisa gaaraya ilaa iyo 120 gini oo lacagta Masaarida ah, una dhiganta $25. daawado meesha calanka heerka ka gaaray tikidhada maxaad ka filan kartaa? dowladda waddanka Masar ayaa ku qiimeysay in tikidhada lagu iibiyo 15 gini oo lacagta Masaarida ah, una dhiganta $3 ayaa gaaray $200. waa markii ugu horeysay tikidhada inta lagu kala iibsado waddanka Masar. weli la waayay 4 galabna markii la gaaray garoonka lagu ciyaaro kubadda oo loogu talagalay inay markiiba ay geli karaan dad lagu qiyaasay ilaa 80,000 oo ruux. intii habeenkii xalayta ahaa ilaa iyo 150,000 oo ruux sida ay sheegayaan guddiga isboortiga ee waddanka Masaarida. walow haddana farxaddaasi ay jirto, daawado ma ku fikirtay rajada waddanka Masar ay uga soo bixi kartay israabraabka koobka adduunka inay ku xiran tahay ciyaar kale oo dhex marayso Algeria iyo waddanka Masar kana dhacayso magaalada Khartoum ee dalka Suudaan.